xilli ayaa waxaa jira magaalo ku caanbaxday cadaaladda iyo sinaanta, waxaana magaaladaas xukumi jiray boqor cadaaladda aad u ilaaliya. waxa uu xoogga saari jiray nabadgelyada, sinaanta iyo waxqabadka bulshada. maalin maalmaha ka mid ah ayuu boqorkii u yeeray mid ka mid ah wasiiradiisa, wuxuuna ka wareystay magaalada iyo xaaladeeda. kadibna wuxuu u soo jeediyey in magaalada bartankeeda lagu xiro jalas weyn oo ciddii dulmi iyo dhibaato ka cabanayso ay garaacdo, si boqorka iyo mas-uuliyiinta u maqlaan kadibna ay wax ugu qabtaan cabashada. boqorkii ayaa waxa uu u yeeray gudoomiyaha maxkamadda, waxa uu amray in jalas weyn oo magaalada ku dhex xiro, sidoo kalena inuu xarig dheer oo ilaa dhulka gaarayo oo lagu garaaco u sameeyo si cid kasta ay u gaari karto. sidaas ayaana la yeelay. gudoomiyihii amarkii wuu ku dhaqaaqay wuuna sameeyey. nasiib xumo silma helin xarig dheer oo lagu xiro, sidaas awgeed ayaa waxaa lagu xiray laan dheer oo canab ah inta laga helayo xarig dheer oo dhulka gaaro. dhanka kale waxaa magaalada ku noolaa oday taajir ah oo aad bakhiilna u ah. odagaas waxa uu lahaa faras oo alaabta ku raro, waxaana uu inta badan dayici jiray faraska oo muusa sii jirin cunto iyo cabitaan midna. kadib faraskii aad ayuu u duqoobay, markii dambena uu shaqayn kari waayey, sidii ayuuna odaygii ku sii daayay faraskii oo meel oo wax ka cuno raadinaya ayaa waxa uu ku soo baxay laantii cinibka ahayd ee jalaska lagu xiray. markii uu is yiri cun ayaa waxaa qayliyey oo shanqara jalaskii. dhammaan dadkii magaalada ku noolaa waxa ay ku soo yaaceen jalaskii si ay u eegaan cidda cabanaysa ee la dulmiyey. qaadigii ayaa dadkii weydiiyey yaa garaacay jalaska, waxayna ugu jawaabeen faraskaas ayaa garaacay, waxaana leh odayga taajirka ah. kadibna waxaa la baaray waxa ku dhacay faraska, waxaana la ogaaday inuu dayaco odaygii lahaa. qaadigii ayaa amar ku bixiyey in odayga lasoo qabto. kadibna markii la keenay goobtii ayaa waxaa la weydiiyey sababta oo u dayacay faraska muddada dheer u shaqaynayay. isna wuxuu u sheegay haddii uu cunto iyo biyo siiyo inay adkaan lahayd inuu taajiro oo lacag intaas la eg urursado. qaadigii ayaa waxa uu ku xukumay odaygii in lacagta uu haysta bar laga qaado oo uu faraska u dhiso xero lagu xanaaneeyo, sidoo kalena loogu iibiyo biyo iyo baad oo ku noolaado. boqorkii ayay arrintii gaartay, wuxuuna sheegay in aanu aqbali karin in magaaladiisa lagu dulmiyo dad iyo xayawaan midna.